wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad nagala socotaan kuna soo dhawaada dhacdooyinkii iyo wararkii u dambeeyay ee qaarada Afrika iyo dunidaba. aan ku horreysiina dalka Soomaaliya iyo Al-Shabaab oo la wareegtay markii dambe ciidamada dawladdu ay kala wareegeen magaalada Balcad. ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa dib ula wareegay magaalada Balcad kadib muddo kooban oo ciidamada Al-Shabaab ay magaaladaasi ku sugnaayeen gacantana ay ku hayeen. wararka ka imanaya magaaladaasi ku taala duleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ciidamada dawladda ay dib ugu laabteen xarumahoodii iyo goobihii ay ka fadhiyi jireen. xaaladda magaaladuna haatan ay tahay mid degan. wararku waxay intaasi ku darayaan in laba askari ay weerarkaasi ku dhinteen, laba kalena ay ku dhaawacmeen, halka haweeney rayid ahna ay xabadi ku dhacday. xabadaasi oo ugu tagtay gurigeeda. ciidamada hubaysan oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa subaxii hore ee saaka dhowr jiho waxa ay ka weerareen magaalada Balcad oo qiyaastii 30 kiiloomitir waqooyi kaga beegan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. ciidamadaasi ayaa la sheegay in ay markiiba la wareegeen xarumihii dawladda hoose ee magaalada sida xarunta dhexe ee maamulka iyo saldhiggii booliiskaba. hase yeeshee markii dambe ayaa waxaa dib ula wareegay ciidamada dawladda Soomaaliya. ciidamada dawladda Soomaaliya ee halkaasi ku sugnaa ayaa markii hore iska caabiyay ciidamada weerarka soo qaaday, balse dib ayay ugu gurteen daanta ay magaalada ka degan yihiin ciidamada nabad ilaalinta ee Midowga Afrika ee AMISOM, halkaasi oo ay mar kale ka soo rogaal celiyeen. qaar ka mid ah dadka magaaladaasi ku sugan ayaa warfidiyeenka u sheegay in bartamaha magaalada ay ku arkayeen ciidamo ka tirsan Al-Shabaab. ciidamada Al-Shabaab ayaa la sheegay intii ay ku sugnaayeen magaalada inay xabsiga ka sii daayeen dad badan oo maxaabiis ahaa. magaalada Balcad waa magaalo istiraatiiji ah, waxa ayna ka tirsan tahay gobolka Shabeellada Dhexe. waqooyiga ayay 30 kiiloomitir kaga beegan tahay. sidoo kale sidaynu hore u sheegnay magaalada madaxda dalka Soomaaliya ee Muqdisho. weli wararka qaarada Afrika ayaynu bartanka kaga jirnay. waaxda caafimaadka ee dalka Suudaanta Koonfureed ayaa walaac weyn ka muujiyay kiisaska coronavirus ee dalka ay dariska yihiin Itoobiya oo kordhaya. arrintani ayaa ka dambeysay kadib markii Itoobiya ay toddobaadkii hore ku dhawaaqday kiisaskii ugu badnaa ee xanuunka COVID-19 tan iyo bishii Maarch, sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO. diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa duulimaadyo toosa isaga dhex gooshta magaalooyinka Addis Ababa iyo Juba, taasi oo abuurtay walaaca weyn ee qabto koonfurta Suudaan. afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay inay qaadayaan tallaabooyin waaweyn si looga hortago cudurka coronavirus. hadday makana aynu eegno dhanka iyo wadanka Maaliya. milatarigii xukunka milatari ku qabsaday dalka Maaliya ayaa la siiyay muddo 1 toddobaad ilaa 15 bishan Sebtembar si ay u soo magacaabaan madaxweyne rayida oo hogaamiye dawlad ku meel gaar oo ka shaqeysa dalkaasi. hogaamiyayaasha ururka galbeedka Afrika ee loo soo gaabiyo ECOWAS ayaa sheegay in madaxweynaha rayidka ee la soo jeediyay ra'iisul wasaaruhu ay wadankaasi la filayay inay u horseedaan doorashooyin cusub. milatariga ayaan weli ka jawaabin arrintaasi oo ay soo jeediyeen 8 ka tirsan madaxda dalalka galbeedka Afrika oo shalay shir ku yeeshay caasimadda dalka Niger. ECOWAS ayaa doonaysa in dawladda lagu soo dhiso muddo 1 sano ah, balse milatariga ayaan iyagu ku waafaqsanayn arrintaasi oo doonaya in la siiyo muddo 2 sano. milatariga ayaa wada hadallo la yeelanaya hogaamiyayaasha siyaasadda. madaxweynaha xukunka laga tuuray ee Ibrahim Keita ayaa sidoo kale u duulay dalka Imaaraadka Carabta, halkaasi oo lagu daweynayo kadib markii uu xanuunsaday. milatariga ayaa xidhay madaxweynaha hore isagoo xilka iska casilay
18 bishii August aynu ka soo gudubnay kadib markii ay dibadbaxyo ka dhaceen Mali. weli waxa aynu ku jirnaa dhacdooyinkii iyo wararkii u dambeeyay ee Afrika iyo caalamkabe, bal hadda markan aynu kacna dhanka iyo dalka Jarmalka iyo xaaladda hogaamiyihii mucaaradka Ruushka. dhakhaatiirta ku sugan dalka Jarmalka ee la tacaalayay xaaladda hogaamiyaha mucaaradka Ruushka ayaa sheegay in haatan ay xaaladiisu soo hagaagayso, isla markaana uu ka baxay koomadii uu ku jiray maalmihii u dambeeyay. hogaamiyaha oo 44 jir ayaa loo soo qaaday wadanka Jarmalka kadib markii la sumeeyay bishii aynu soo dhaafnay. taageerayaashiisa ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in amarka lagu sumeeyay hogaamiyahooda uu bixiyay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin, balse arrintaasi ayaa waxa iska fogeeyay oo beenaysay madaxtooyada Moscow ee looga arrimiyo dalka Ruushka. dhinaca iyo wadamada bariga dhexe iyo Carabta balaynu laabanee. maxkamadda boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa Isniintii shalay xukunno ku riday 8 nin oo ka tirsan sirdoonka dalka Sacuudiga oo loo haystay dilkii suxufigii Jamal Khashoggi oo ay ku dhex dileen qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee cariga Turkiga. 8 nin ayaa magacyadooda aan la shaacinin, waxaana xukunkooda lagu baahiyay telefishinka dawladda. maxkamadaynta raggani ayaa waxaa si weyn u cambaareeyay hay'adaha xuquuqul insaanka iyo beesha caalamka oo maxkamadayntani ku tilmaamay mid qarsoodiyo oo la qariyay xogo badan. 5 ka mid ah eedeysanayaasha ayaa dusha laga saaray dilkii suxufigii Jamal Khashoggi oo dhacay 2 bishii Oktoobar sanadii 2018, waxaana la filayaa 5 nin in dil lagu xukumo. hase yeeshee mid ka mid ah wiilasha uu dhalay Jamal Khashoggi oo hore saxaafadda Sacuudiga ula hadlay ayaa sheegay inay cafiyeen kooxda dilkaasi geysatay arrintaasi oo ay dad badani u arkayeen mid culays lagu saaray qoyska uu ka baxay marxuumku. maxkamadda oo ka duuleysay cafiska la sheegay inuu ka yimid qoyska Jamal Khashoggi ayaa 20 sannadood oo xabsiga ku xukuntay ragga dembigani loo haystay, halka 3 kalena oo eedeysanayaasha ka mid ah iyagana lagu xukumay 10 sano oo xabsiya. waxaana gebi ahaanba aan la soo hadal qaadin ciddii bixisay amarkii lagu fuliyay falkaasi arxan darrada ahaa ee ay ku kaceen sirdoonka dalka Sacuudiga, kuwaasi oo ay dad badani aaminsan yihiin inuu amarkaasi ka soo baxay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Mohammed bin Salman. khubaro ka socotay qaramada midoobay oo hore arrimahani u baadhay ayaa sheegay in amarka lagu dilay suxufigaasi uu ka yimi xafiiska ugu sarreeya ee dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya, arrinkaasi oo loo fasirtay in uu bixiyay Mohammed bin Salman. mar kale aynu dib ugu soo noqono qaaradda Afrika. dowladda Cameroon ayaa sheegtay in doorasho dadban dalkaasi laga qaban doono 6 bisha Disembar ee sanadkani. doorashadani ayaa hordhac u ah hirgelinta nidaamka maamul daadejinta dalkaasi, waxaana la qorsheynayaa in doorashadani ay ka dhacda dhammaanba dowlad goboleedyada dalkaasi laga sameeyay oo soo dooran doona golayaashooda si meesha looga saaro awood badan ee ku jirta gacanta dowladda dhexe. go'aanka ka soo baxay madaxweynaha da'da ee dalkaasi Belbia ayaa ku soo beegmayay xilli ay kacdoon ka jiraan gobolada waqooyi ee dalkaasi oo ay ku nool yihiin dad ku hadla luqadda Ingiriisiga, kuwaasi oo u halgamaya ama u ololeynaya inay gooni uga go'aan dalkaasi. xiisada ka jirta labada gobol ee waqooyiga Cameroon 3 sano ee la soo dhaafay ayay ku dhinteen sida la sheegay in ka badan 3,000 oo qof. sanadii 1996 ayaa la sameeyay dastuurka dalkaasi oo dhigaya nidaamka maamulka lagu baahinayo, balse ilaa iyo hadda lama hirgelinin dastuurkaasi oo qoraya in nidaamka doorashada dadban lagu soo dhiso golayaasha dowlad goboleedyada dalkaasi.
labada gobol ee waqooyiga dalkaasi oo ku hadla luuqadda Ingiriisiga iyo muddo dheer ka tabanayay dowladda dhexe in ay awood ku leeyihiin dadyowga ku hadla luuqadda Faransiiska, waxaanay tani keentay in sanadii 2017 ay ku dhawaaqaan dowlad u gaara. Dowladda dhexe ayaa tan iyo xilligaasi waday olole ay kula dagaalamayso dhaqdhaqaaqyada ka socda goboladaasi. Madaxweynaha dalkaasi oo haatan jira 87 sano ayaa xilkani hayay tan iyo sanadkii 1982 bishii Noofambar ee sanadkani ayay u buuxsameen 39 sano oo uu dalkaasi ka talinayay. Intaasi ayuu maanta inagaga eeg yihiin dhacdooyinkii iyo wararkii u dambeeyay tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa isma dhaafno.